Asalaamu calaykum. Ma isku dayday inaad samayso xayeysiin Facebook adigoo ku xirayo WhatsApp-ka oo ma kuu soo baxay error WhatsApp optimization is not available? Xal ma u weysay oo cilada ma kugu sababtay in ganacsigaaga ama xayeysiinta aad rabtay in WhatsApp-ka lagala soo hadlo ay ka istaagto? Xitaa dadka qaar ayaa aaminsan in laga xiro Facebook xayeysiinta WhatsApp-ka, laakiin taasi sax maaha. Cilad yar ayaa ku haysato oo u baahan hal fudud. Arrintaas oo error-ka ah ayaa ka dhacda dalal badan oo ay ku jirto Soomaaliya, taasoo aysan ogoleen shirkadda Meta in WhatsApp-ka conversion loo xisaabiyo ama WhatsApp conversion in lagu xiro xayeysiintaada Facebook. Muuqaalkan waxaan kugu tusi doonaa sababta ciladahaas keento iyo xalka saxda ah ee kuu oggolaanayo in aad samayso xayeysiin WhatsApp. Nala dhammaysa muuqaalka oo ku soo biir walaalaha ku xiran Amjad Digital. Ciladaas ku haysatay maanta ayay u dhammaatay. Haddii aan toos u guda galno, waxaan u kala qaadaynaa cilada ku imaanaysa xayeysiinta markii WhatsApp la saaro laba qaab ama laba dad ayaa u kala qaadaynaa. Dad isticmaala moobilkooda kuwaasoo ka saara halkaas xayeysiinta loo yaqaano postbot, waa dadka koowaad. Dadka labaadna waxaa waaye waa dad isticmaalayo Ads Manager-ka kana saaraya xayeysiinta halkaas. Labadaas marba ciladu way imaan kartaa. Cilada marka imaanayso maxaa sababay? Cilada kow waxaa sababay nambarka aad isticmaalaysid. Sida tusaale haddii aan dhahno get more message, halkaas maxaa u jeednaa conversion optimization is not available for WhatsApp. Number. Marka cilada waxay ku imaaday nambarka aad u isticmaalaysid xayeysiintaada ayaa wuxuu yahay nambar Soomaaliya. Soomaalina waxaa saaran ban ayaa ka saaran in automatically conversion ahaan WhatsApp-ka xayeysiin loogu saaro. Marka ciladan laba qaab waa ku xalin kartaa. Qaabka koowaad oo aad ku xalin kartid waxaa waaye in aad beddesho wax la dhahayo nambarkaaga. Tusaale nambarkan hadduu nambar Soomaali yahay, in aad nambarada wadamo kale aad raadisid si aad xayeysiinta ugu isticmaashid. Waa xalka koowaad. Xalka labaad waxaa waaye in xayeysiintaada aad u beddeshid linki click. Linki click marka aad ka dhigaysid waxaad ka dhigi kartaa Ads Manager-ka computerka ama moobilka hadba midkii suurtagal kuu noqdo. Marka waxaad ku beddelaysaa xayeysiintaada postbot-ka maadaama haddii cilad ay ku imaado WhatsApp-kaaga nambar Soomaalina uu ku xiran yahay aadna heli karin nambar kaleeto oo wadamada kale. Markaas waxaad ku xiraysaa, waxaad tegaysaa Ads Manager-ka. Ads Manager-ka ayaan isla tegaynaa. Isaga naftirkiisa cilada wuu kuu soo qorayaa, laakiin xal fudud ayuu leeyahay anagoo isticmaalayno isla nambarkeena WhatsApp Soomaaliga. Aan isla tagno. Waxaad u jeedaa markaa WhatsApp-ka dooranay wuxuu soo qoray error-kaas oo ah inuusan ogoleynin xayeysiinta WhatsApp. Haddii marka uu cilada aad ku xalin kartid number is conversion-kaaga adigoo message la xisaabinayo ayaad heli kartaa number ayaa waxa u heli kartaa conversion. Haddii marka nambarkaas uusan suurtagal ahayn ay muhiim tahay nambar Soomaali inaad isticmaasho, halka waa halkan. Waxaad imaanaysaa meesha ay ku qoran tahay performance goal. Halka ay ku qoran tahay performance goal oo ay ku qoran tahay maximize number of conversion ayaad ka beddelaysaa. Waxaadna u beddelaysaa maximize number of link click. Marka laba qaab ayaa loo xalin karaa xayeysiinta. Halkan maxaa u jeedaa wixii error-ka halkaa way ka baxeen. Sida aad halkaas uga jeedid shaashada dhinacaas error-kii wuu ka baxay. Calaamadii error-ka aheeday way inooga baxday. Marka laba qaab ayaa lagu xalin karaa dhibaatada kaa haysato inaad WhatsApp-ka wax ku xayeysiin karin adigoo isticmaalaya Facebook. Waa in nambarka Soomaaliga aad ka beddeshid, aad u beddeshid nambar kaleeto haddii suurtagal tahay, ama aad meesha ay conversion ka dooran tahay aad ka beddeshid kana dhigtid linki click. Macnaha xayeysiintaada dadka WhatsApp-ka soo booqanayo marka Ads Manager-ka tagtid waxaa la xisaabinaa as linki click, number of linki click. Inta qofood oo click garaysay ma la xisaabinayo number of conversion. Marka conversion-ka oo WhatsApp-ka ciladaas ayaa ka haysato wadamo ay ka mid tahay Soomaaliya. Waxaan rajeynayaa muuqaalkan in wax xun aad ka faa'iiday maanta kadibna aad samaysan kartid xayeysiintaada Facebook-ga. Haddii aad danaynayso inaad barato
xirfadda social mediaha si dhammaystiran waxyaabo badan oo cillado ah kaa hor imaan lahaana aad ka awood badasid ama aad noqoto qof kasbarti ah. Waxaan diyaariyey koorso loo yaqaano social media marketing taasoo ka kooban 5 model. Waxaana ku baranaysaa Facebook Ads, TikTok Ads, Instagram Ads iyo Pinterest Ads. Waxay ka kooban tahay ilaa 47 cashir ama ilaa 9 section ayay ka kooban tahay. Waxaad ka soo qiimeyn kartaa linkiga qaybta sare. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.